Ma la joogaa xilligii Soomaaliya loo qaybin lahaa dawlado yaryar oo kala madax bannaan? haddii la ismaqli waayo oo la is ixtiraami waayo oo la wada noolaan waayo horey u soo dhacdo wixii ka dhashay waynu garanayna. Xaggee Soomaaliya u socotaa? haddii annagu aan isqaban weyno oo xildhibaanadu isqaban waayaan oo guddoonkii la qaban waayo oo madaxweynuhu loo qabsoomi waayo dee qof walba tuuladiisii iyo xoolihiisu iska raacanayaan qarnimadeenna halkaas ayay nooga burburaysaa iyo dowladnimadeenna. wardhiigley ma aha dowladnimada Soomaaliya hadduu qofku u arko inay xaafadda uu jooga ay u noqonayso dowladnimada Soomaaliya oo xukunku uu yahay xaafadda uu joogo sax ma noqonayso. Saddexda mas'uul hadashay dadka ay matalaan waxay ku nool yihiin 11 gobol oo kamid ah guud ahaan 18 gobol ee Soomaaliya. Sidoo kale waxay ka carariyaan 58% dhulweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Haddaba 4 sano u dambeysay si weyn ayay uga soo horjeedeen hanaanka uu madaxweynaha xafiiska iska jooga u maamulayo arrimaha dalka. Ma ahan in ay doodahooda ku saleynayeen si la mid ah qabiiltii 21-ga uu Xasan Sheekh sameynayay, balse waxay cuskadeen qodobo sharci ah oo ah madaxweynuhu in uusan diyaar u ahayn inuu doorasho qabto iyo in uu bedelay dastuurkii ahaa heshiiska bulshada ee lagu doortay. Haddaba xaggee Soomaaliya u socotaa? Si aan u fahanno waxaan u baahanahay inaan dib ugu noqono 2021 iyo kala xukunkii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.